kadib markii ay dishay nin bajaajlaah oo ay sheegtay inuu kufsan rabay. dacwad oogaha ayaa sheegay in baaritaan kadib uu ku qancay sheegashada gabadha oo da'deeda lagu sheegay 15 jir ayaa sheegtay inay toorey gelisay bajaajlaha kadib markii uu damcay inuu kufsado. sheekada gabadhan ayaa si weyn ugu faaftay daafaha caalamka. cabdalla qaalib waa wariye ku nool magaalada qaahira, si weynna ula socday arrinta gabadhan. qadka telefoonka ayuu iigu waramay. xaafadda wax ka dhaceen waxaa la yidhaahdaa 6 Oktoobar ama 6 Oktoobar. xaafaddaas inta badan waa cidla, deegaamo badan oo cidla baa ku yaala, waana halka ay ku leedahay hay-adda qaxoontigu xarunta ku leedahay. marka ninkani wuxuu dareemayay inay hayd halka wuxuu rabo ku samaysan karo. gabadhan halkaas ayuu ka qaaday, kadib meesha ay u sheegtay ayuu kala leexday. sida iyadu xiraalinta u sheegtay marka ay tidhi meeshan u soconin maxaad uga leexday, wuxuu yidhi dariiqana ka dhow midkii hore. marka sidii loo socday uu istaagay, wuxuu u sheegay in uu bajaajta soo gaadhay cilada. intuu iska dhigayay nin ku mashquulsan ciladana wuxuu la soo baxay midi, kadib wuxuu damcay inuu ku qabto yidhaahdo marka ay isdhiibto. laakiin xoogaa dagaal baa dhex maray labadoodii. ilaahay amarkii un waxaa gacanteeda soo galay mididii, markaas ayay mididii ku dhufatay sidaa iyada u sheegtay xeer ilaalinta. markii ay ninka toorida geysay waxa ay tagtay saldhigga booliska oo kaaga dhawaa sida wararku leeyihiin. maxay halkaa ka doontay? horta markii ay dhacdadu sidaas u dhacday, iyadu kama aanay warhaynin marnaba inuu ninkii dhintay iyo inuu dhiman doono toona. saas darteed bay waxay u tagtay saldhiggii ugu dhawaa si ay ribood ama maxdar ay u geysta halkaas, iyadoo ay sheegaysa dhibka soo gaadhay. hase haatee markii goobtii la yimid baaritaankii la bilaabay, waxaa loo yimid ninka meydkiisi oo meesha yaalla. sida la sheegay ninku meeshii ay nabar ku gaadhay markii ay inantu ka carartay, waxa uu sameeyey wuxuu isku dayay inuu dhakhtar tago, ugu orday. hase haatee meel aan meesha ka fogeyn ayuu ku dhacay. marka halkaasaa loogu yimi meydkiisi isagoo dhiig baxay. marka inantu xilligan ay ogaanayso inuu ninkii geeriyooday, waa un xilliga dadka kale ogaaday, warba kamaan haynin markii hore geerida ninka. saldhigga markii ay tagtay boolisku maxay sameeyeen? boolisku ugu horreyn waxa uu tegey goobtii uu ka dhacay falku, si halkaasi cayino loogu sameeyo goobta, sidii wax u dhaceenna loo arko. sidoo kalena boolisku waxa baaritaan uu ku sameeyey ama shariixo lagu sameeyey meydka ninka dhintay. kadib waxaa iswaafaqay baaritaankii natiijadii kasoo baxday iyo xogtii ay gabadhu soo gudisay ahayd in ninkani doonayay inuu ku xadgudbo sharafteeda, saasna iyadu mudidan adeegsatay, dhibkaasi gaadhay. marka natiijadan in gabadha waxba lagu waayana markii dambe waxaa lagu dhisay un baaritaankii iyo gabadha xogtii ay gudbisay markii laisu geeyay natiijadii kasoo baxday wey. mudday xirneed gabadhu sida warku leeyihiin, haddana waxaa laleeyahy waa la soo daayay sida hadda ii sheegaysa. marka qaabkee loo sii daayay? waa qaab ilaa iyo hadda ah qaab ku meel gaadh ah, ama si ay soomaalidu u taqaano damiinasho oo kale. marka qaabka ay kusoo baxday sidaas weeye, waxaana sii socon doonaa weli baaritaankii. haddii kiiska waxay iska bedelaan, haddii wax kale soo noqdaan, haddii daliilo kale oo mataqaanaa la helo kiiska natiijadiisii hore wax ka bedelaya. tanna waxay ka dhigan tahay si xeerlaantu sheegtay in natiijadana ay tahay natiijo hordhaca oo lagu ogaaday qiraalkii ay gabadhu samaysay iyo baaritaankii goobtii markii la tegay meydkii la baaday, iyo sidoo kale daliiladii la helay ayaa lagu ogaaday inaysan gabadhani dembi lahayn. marka qoyska gabadha dhalay ma ka hadleen arrintan ku dhacday? weli ilaa iyo xilligan qoysku wax hadala kama aanay odhanin xaaladan dhacday iyo sida wax u dhaceen. isku dayo la sameeyeen qoysku waxay ka gaabsadeen arrintan inay ka hadlaan. marka waxa ay inta badan uga gaabsanayaan waxa weeye arrimo amni iyo in mataqaanaa dabagal ama yani si kale wax loo yeelo, maadaama arrinta meesha ka dhacday aysan arrin yar ahayn oo qof dhan u dhintay. sidoo kalena waxaa jira looyaro iyo qareenno iyaga u doodaya oo gaar ah. marka waalidka iyo qoyskoodu marnaba kama aanay hadal arrintan. falkan ay gabadhu samaysay waxaa si weyn uga hadlay warbaahinta caalamka. bal ka waran falcelinta gudaha dalka Masar? dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay arrintani aad ayaa looga hadlayay baraha bulshada carabta, gaar ahaan kuwa Masar. markii dambe waxaa arrintu gaadhay kuwa Soomaalida oo iyaguna si weyn ugu soo biiray oo iyaguna aad u wadwaday arrintani. gaar ahaan waxa ay arrintani gaadhay warbaahinta Soomaalida kadib markii natiijada lagu dhawaaqay oo la sheegay gabadh Soomaaliya oo nin qaab noocaas isugu dayay
inay dishay kadibna lagu waayay. waxaa soomaalida aada usoo jiidatay cadaaladda dalka masar iyo xiraalintu sida hufan natiijadii ay ugu soo gudbisay. waxaa sidoo kalena baraha bulshada dalal badan oo carbeed iyo inta luqadda carabiga fahmaysa iyo dad kale oo mataqaana ay sii gaadhay caalamka oo dhan ee aada uga falceliyeen iyagoo dhammaantood aada u ammaanayay gabadhaas iyo arrinta ay samaysay ku tilmaamayay arrin geesinimo ah. waxaa xusid mudan in arrimaha noocan oo kale ahi aysan dalka masar ku cusbayn, sanadkiiba la diiwaan geliyo intaasoo dhacdo oo ku saabsan gabadha laysku dayey in la faraxumeeyo kase ahaatee dishay ninkii isku dayey. marka masaarida uma cusba, hase ahaatee soomaalida ayay aada ugu cusub tahay arrintan oo kale. waa tahay waxa uu ahaa cabdalla qaalib oo ah wariye ku nool magaalada qaahiro oo telefoonka iigu warramay. war haddana soo gaaray ayaa isna waxa uu sheegayaa in dalka urdun uu ku geeriyooday sheekh cali warsame xasan oo ka mid ahaa culimada ugu magaca dheer somalilan, sidoo kalena ahaa sheekhul beledka gobolka togdheer ee somalilan. sheekh cali warsame ayaa muddo badan oo gaaraysa nus qarni waday faafinta diinta islaamka. allahu naxariisto.